الرحمن الرحيم waxaan maanta mar labaad ku faraxsanahay muddo kadib muddo sanada oo wadanka aan ka maqnaa inaan wali ku jiro ilaa intaan imid damaashaadka iyo quruxda iyo bilicda iyo horumarka runtii wadanku sameeyintaan maqnaa ku dalxiiskeeda shalayta waxaan joogay goob ilaa sayidka ilaa maxal lahaa goobaha taariikhiga ah dhagax tuur maanta waxaan joogaa Daynile runtii waan ku faraxsanahay isbedelka qiimaha badan ee weyn ee hadda maxaan ku raahdaa deegaankeena ka jira ama dalkeena ka jira markii aan sanad ka hor wadanka ka tagayay runtii wax aan jirin ama maxaa la dhahaayay horumar markaas aan jirin ama qabyo ahaa ayaa runtii hadda ka dareemaya inuu deegaanka dhan uu runtii ka wada muuqdo waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inay dalka noo qurxiso inay maxaan ku dhahaa dhulka noo qurxiso inay maxaa la dhahaayay goobahan taariikhiga iyo jawiyada noocan runtii cid kasta oo noo ogolaatay oo ka qayb noqotay oo Ilaahay Rabbi Subhanahu wa Ta'ala ugu horeeyo iyo xukuumadda runtii aan u mahad celinayo runtii dadaal badan ku bixisay sidii dhalinyaradu ay u heli lahaayeen waqtigooda qiimaha badan sidii dhalinyaradu wadankooda ugu damaashaadi lahaayeen sidii dhalinyaradu wadankooda ugu dalxiis lahaayeen meeshan aan joogay quruxda badan laga yaabo inay ahayd waligeed basaan iskaga qurux badnayd laakiin runtii waxa quruxda iyo bilicda iyo xasiloonida u yeelay xataa amniga iyo nabadgelyada marka cid kasta runtii ka qayb qaadatay waa uga mahad celinayaa runtii farxad weyn baan dareemayaa oo aan la soo koobi karin qofku markuu uu dalxiisayo wadankiisana uu ku dalxiisayo runtii taas waa nolosha ugu macaanka badan ugu dhadhanka wanaagsan boqolaal dalxiis ama goobood oo aan tagay oo wadankii aan ka yimid ahaa waxa iiga qiimo badan meesha ayra cagaaran cidlada wax kale aan lahayn runtii iiga qiimeeyay farxad badan wadankayga ma sha Allah qab yahan iyo lahaanshan dareemaya wadanka ha guuleysto dhalinyaradu maxaa lahaayay ha ka shaqeeyaan horumarka iyo amniga wadanka waa iiga ah kuwa birta dheefsanaya aad baad mahadsantihiin wallahi goobaha noocan in la badiyo waxay soo kordhin kartaa dalkan iyo dadkan waxay soo mareen xaalad aad u badan oo runtii aad iyo aad u adag dadku way daalayeen maskaxday ka daalayeen taariikho mugdiyo ama maskaxda u wada fadhiya qax iyo orod iyo dhibaato iyo baa dhowr sano ka hor lagu jiray saas darteed in dadka goobahan quruxda loo sameeyo oo ay nastaan oo ay dalxiisaan waa ka meedho wixii ku soo maray oo kale nabadda iyo xasiloonida iyo inaysan dhalinyaradu xataa waxyaalo kale ku mashquulin bay qayb ka noqonaysaa oo dhalinyaradu ay bilicda ku mashquulaan xasiloonida maxaa ku raada wadanka ay qayb ka noqonaysaa horumarka wadanku sameeyo indhaha caalamka inay soo jeedana bay qayb ka noqonaysaa marka wadankeena la qurxiyo macnaheedu waxa weeye in qulubta ummadda Soomaaliyeed la qurxiyay jaanisna ay helaan inay raaxaystaan ku dalxiisaan wadankooda wallahi horta kuwa magaalada ku yaala labadaba way qurux badan yihiin fiican yihiin laakiin hadda aniga hadii la weydiin lahaa labada goobaha magaalada ka baxsan iyo kuwa magaalada ay qurux badan sababtay tahay magaalada caalamka dhan ay manaya maxaa la dhahaayay waa sawir yani waxay ka matalaysaa deegaanka sidoo uu ekaan yahay hadii guduhu quruxsan yahay waa hubaal in la sawiran karo in banaankana qurux yahay laakiin banaanku haduu qurux yahay guduhina xun yahay oo kale ma fiicna marka horumarka iyo bilicdu waa inay ka bilaamataa gudaha magaalada ama gudaha caasimadda ama gudaha gobolkaas baan danayn lahaano yani gudaha ka bilaabi lahaano dhalinyarada lahaanshaha aan dareemeyn waa u nasiib xumo waayo wadankan ayaga iska leh
iyaga ah kuwa maanta mustaqbalka caruurtooduna ay manfacsanayso maxaan ku dhahdaa inay lahaansho dareemaan oo wadankooda markay dhex socdaan u damqadaan jugta gaadha ama dhaawaceeda gaadha ama khaladkeeda ka dhaca inay dareemaan runtii iyaga dadnimo u tahay iyaga jiritaan u tahay iyaga deganaansho u tahay iyaga caafimaad u tahay iyaga nabad u tahay saas darteed waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ka qayb noqdaan amniga horumarka bilicda wadanka iyo wax kasta oo wadankeena taako oo lagu kordhinayo inay iyagu noqdaan kuwa kordhiya kuwa xooga kuwa shidaalka kuwa maskaxda kuwa aqliga waayo iyaga ah kuwa dheefsan doona